La yaab ma lahan inaad qalad gasho. Waxaa ceeb ah inaad qaadan qaladkaaga. Qofna ha uga faa'iideysan daruufta. Adigoo awooda inaad u diirnaxdo. Ha raadin qof kula mid ah. Ee raadi qof buuxiya waxa kaa maqan. Ha u noolaan si xornimo leh oo xisaab la'aan ah. Weligaa xusuusnow amarka Eebe. Ha ka fikirin oo keliya in lagu jeclaado. Ee samee ficilo lagugu jeclaado. U naxariiso dadka oo dhan, gaar ahaan qofka ku jecel, oo sii ixtiraam gaar ah. Ha ku kaftamin erayo saameyn ku leh qalbiga qof kale, maxaa yeelay waxa ay dhaawici kartaa ama kordhin kartaa rajadiisa. Muhiim ma aha kala fogaanshaha labada ruux, waxaase asal ah midowga labada qalbi. Ha caadeysan beenta iyo raaligelinta aan saxda ahayn ee bar naftaada xaqiiqda in ay ku kalsoonaato. Ka hor guurka ogow waxa kuu saxan iyo waxa kaa khaldan, si aad hadhowda ugu kadsoomin lamaanahaaga. Caajisku waa dilaaga koowaad ee habfikirka maskaxdaada. Ha ka cabsan jacaylka ee u cabso jiritaankaaga. Ubadkaaga u diyaari dareen iyo dadnimo ay kula falgalaan dunida. Ha u diyaarin oo kaliya dugsi iyo hanti ay ku baahibeelaan. Nolosha qoyska samir iyo tanaasul baa u ah saldhig. Maaha anaa iri. Macno badan kuma dhisna in aad dumar badan guursato. Waxaase muhiim ah inaad ku deynbaxdo dunidan. Ha ka maseerin nolosha qoysaska kale ee adigu maarey quruxda reerkaaga. Qanaacadu maahan hanti iyo qoys wacan inaad ka dhalatay, ee waa rabitaanka qalbigaaga. Baro kaabayaasha iyo kobciyaasha dareenka lamaanahaaga. U tixgeli qof kasta luuqda jecelkiisa, hana kula yaabin falcelinta rabitaankiisa. Ku xamdi nimcada aad haysato, kuna faan mar waliba awoodahaaga wanaagsan. U faraxsanaw si xor ah, hana ku xirin qofna sababta farxadaada. Hadda firin dareenkaaga saxda ah, una daryeel qalbiyada dadka kale sida kaaga. Xoray fikirkaaga oo ha noqon maqaasiinkeediya araarta dadka kale. Ha ku fududaan oo ha dhayalsanin dembiyada, haba ugu horeysay xadgudubka jinsiga. Maarey naftaada iyo midda dunida. Waad ku mahadsantahay dhegeysigaaga wacan.